waxa ashaacirada ay ka sheegaan oo ay ku propagandiyaan waxa ay yiraahdaan ashaaciradu waxay qabtaabay yiraahdaan quraanka ilaahay waa makhluuq idan muujinaya inaan ashaacirada qaar ka mid ah aan ku khilaafsanahay inay qabaan quraanka inuu makhluuq yahay anigana aanan qabin kishki hadii lagu weydiiyo waa shaafici madhab ash'ari al-aqida usulka waxaan ka ahay dhanka ash'ariya dhankaasna u janjeera wax ma ku khilaafsan tahay naam waxay qaar ku khilaafsanahay ashaacirada مسألة مسائل خلق القرآن القرآن هو مخلوق وبدين الشاعر القرآن مخلوق إلى الكل سبحانك هذا بهتان عظيم إلهو أدقى حمان ودن كبير هذا كان أي شيئين ومصبد وين أون سهلني وكان ولا ريال كتبت إنكم مساجد أنكم أغرنو إيه عقيدة إنوءة وكتبت ليراه العقائد السبعة هل كتاب ككينا او يري قرانك وا مخلوق كتبت انو مساجد كو اغرينو ايغا ايابا لا دغالما فكرده قبط قرانك الهي وا مخلوق لما اورن كرو قرانك الهي وا مخلوق waxay kale yiraahaan ashaaciradu waxay qabtaa mushafka waxa ku qoran quraan ma aha ayay qabtaa bal dhageysta warkan ashaaciradu waran iska sheegay ma aha diin ma hayaan إسلامنا شغل كما إلها كتاب القرآن كي يسوقه وذا هذا يجي حقيقي كتاب القرآن كي بركيسين إذا هو دواتان هذا البناء آدم ويكي الله ما أهنك آمي سنحوية ورك الدابية كتاب كأصلا هذا البناء آدم ويكي أما هو هذا المخلوق من الله ما هي أمسين أشاعره كتب تضع قطال مركز الدين تإنه شيء محيطه هذا كان إلهي ملها لقول الشيخ إسماعيل وكو كوبان هذا كان إلهي ما شيخ محمد إيكا وكو إمام دوناي يسيقى قد مني شيء اسمع المادي قرأت وركيga هذا الكاس ورما هذا الإلهي بقى كتابك القرآن كما هذا الإلهي بقى ما الله مش مخلوق من الخلائق بالي مخلوق بالي كليه إلهي نملها شكر لكم الله رب سبحانه وتعالى بروباغاندadaas ayay sheegeen borobaagandadaas walaalayaal waa borobaaganda ay ka soo minguuriyeen ayna ka soo xirteen qoladii mushabbihada la dhihi jiray oo ahlu sunnaha caybay jirtay mushabbihadii hore ahlu sunnaha caybay jirtay ayaa sidaas ahlu sunnaha ku caybay jireen waxaan asal lahayn ayay weligood dadka u sheegaan waa been abuuradkii bidcadii hore ee shaacirada ka sheegi jireen waa iftira qadiima waxaanu ka aqrinaynaa dabaqaatu shaafiiciyaha dhageysta wa amma ma qaalu ayuu yiri xaafidku waxa ay yiraaheen inna madhabahu anna alqur'aana lam yakun bayna ad-dafatayn أبو الحسن الأشعري مذهب كيسو وحوها قرآنكو إنو سنكو قرين حاشيها وليس القرآن في المصحف عنده قرآنكنا مصحف كما قرأ أيراهين وأشاعرات وحي قبان وحا هد قرآن معها أي قبان أيراهين فهذا أيضا تشنيع فظيع وصال حموين وتلبيس على العوام وادتك عامضة الخلطها يو أيو يري كتاب كني عامدي ku qaldayaan waxana hadalkaas fikradaas curiyay qoladii jahmiyada iyo mu'tazilada iyo mushabbihada waxaas ayaa ku been abuura jiray ashaacirada iyo culimada inna al-ash'ariyya wa kullu muslimin imam al-ash'ari iyo muslim kasta غير مبتدع inuu bidci yahay maahane yaqulu wuxuu leeyahay inna al-qur'ana kalaamullah quraanku waa hadalkii ilaahay ayay ashaaciradu qabaan وهو على الحقيقة مكتوب في المصاحف قرآن كنا وحوك قرآن يهي مصحفك حقيقة هانو قرآن يهي مجاز معها ومن قال قفيراها إن القرآن ليس في المصاحف قرآن كن مصحفك كما قريراها فهو مخطئ واقف قفي بل القرآن مكتوب في المصحف على الحقيقة قرآن كن مصحفك أيو حقيقة هانو قرآن يهي والقرآن كلام الله قرآنك إلهينا وهذا الإلهي وهو قديم قرآنك هو قديم غير مخلوق معها قرآنك إلهي
sidan ayaa kutubtii ashaaciradu ay caddaynayaan halkaas walaalayaal waxaa ku baaba'day shubhadii ay ku aflagaadaynayeen ashaacirada oo ay dhahayeen ashaaciradu waxay qabtaa qur-aanku musxafka kuma yaalo makhluuqna weeye ay dhahayeen haddaba walaalayaal ka digtoonaada nimankan mushabbihada ah mar walbaba waxa ay dadka u meeriyaan wax aan jirin oo ay ka soo minguuriyeen mubtadicadii iyo bidcooyinkii hore ay ka soo qaateen waxaannu leennahay waa been abuurad weyn ilaahay ha u laabtaan ha ka toobad keenaan culimmada ay nabsadeen kutubta ay nabsadeen diinta ay beenta ka sheegeen brobagandada ay faafiyeen inta aysan geeriyoon ilaahay ha u soo laabtaan subxaanahu wa tacaala